sheekada aan ugu horeysiinayay aan jecelahay inay dadku inala dhageystaan waa sheekada dad qalatada waxa la yiraahdaa qof dad cuna waxa ugu horeeyay dadka Soomaalida bal sheekada adigu maxaad ka aaminsan tahay sidayse ku dhacday badana aniga ku sheekeeya dadka cuna Soomaalida ugu horeysay taasuna waa taariikh aan helay gobolka Sanaag bay ka kacaan dad qallo badan waxa kamid ahaa Dhaylilaaf hadii shirkoon xaqda marka la daawado carruurta ay daawadaan madax bilaa indhaha si ah meelaha ma jiro ku aragtaa madax gorof baa loo jiray madax gorof Dhaylilaaf halowle heesaayi dagaaga fadhi garhaye niman caynkaas ah baaciye cadoowe niman caynka wada xaasoo dad qaltooyin baa dad qalayahay ma xaasoo dhan taariikhda wowgi oo Jibriil Gorey la oran jiray way saleendey dad qalkayo Dhaylilaaf taariikhna waa kishay dhintay Jibriil Gorey bay saleendey Dhaylilaaf oo dad qala oo bilaaya marka Dhaylilaaf kaasoo ahaa waxa la yaabo imika ay leeyihiin waa sidaariyo dad xaqdan tusayaan oo waxa inaga ka xabay Dhaylilaaf waa la qabtay god baa lagu riday buurahaas godad baa jiray sheela waa lagu riday soo dhagax baafka laga saari jiray halkaas waxa kasta ku waqti jiray god baa lagu riday 10 sano laga nasta maalintii dambu isagoo yaro bisada leeg oo madhay yu islaan xiis ku socota ku soo baxay iska raaca 10 sano markaa god buu ku jiro meel alla ka soo baxay meel wax ka cun jiray la garanayo dabeeto halkaas uu ka raacayo markay xiis yar u jireen islaantii ka bayray islaantii isla bahar yar soo guriyo waxa ay moodaysaa badii meel buu mariyo ka sii qaato xiis soo tago hori ninaan imka magaciisa hayno soo heli doonayo hebel ma joogaa wasale habeen dambe imanay doonidii hebel buu la socdaa wuu sugi markii uu yimaad loo sheegay nin baa ku sugayo waa balo masaajid halkan uu sii saxdayo uu kaxeeyo waxay nacaynkaas dibadda buu la yirbaxo qoortu kala jabiyo waa cuna waana raggii hogga ku riday ayuu kamid yahay ninkaas waligu uu ka aarsaday maalintii dambu meel tagayo miyigaasoo wuxuu bal wax luka soo socda iyo adkeeyagti dibadda soo geedkii fuushan baa Jibriil Gorey saxana ayaa dabadna arkay waxa geedka saaran Jibriil waa ku soo dhici waay uu daadego Jibriil buu eriyay waad markuu rag oo dhan wuxuu kala yaqaanay reer walba iyo nin walba ninka dheereeyay ninka xoog weyn way kala wada yaqaanay dad qalaas deeso meesha uu meedana waa deegaankaasi ka dhashay yaa xagaasi ka dhashay dabadna nin wal oo dheereeya iyo nin wal oo xoogaba wuxuu yaqaanaa si aan saacayb uu yaqaanaa way kala wada yaqaanay okay markuu deegaari waayay ayuu yiri warba Jibriil Goreyga marasuu ha يجوري Dhaylilaaf uu dhintay ma la lahaa orday ya hadana waa noolay ma la lahaa ila weeriyay isagoo isleeyay inuu ku yara joogsado warti Dhaylilaaf uu dhintay ma la lahaa hadana waa la arkay ma la lahaa marka Dhaylilaaf imisa sanadood buu noolaa imisa qof buu cunaalay ciida wax ka badan nina Yuusuf loo jiray oo waliba mareexaan ahaa oo Yuusuf loo jiray raggii uu helay buu kamid ahaa habeen iyagoo dab shidanaya afar daqiiqo meel dab ku shidanaya way ku soo dhaxdaan iyagoo laba nin de way qabteenoo xaabaday ku qalan lahayn bay noo soo gura si xaabadii uu soo guray ka carareen أو يسحبين كاسدي لو إريي وأنا مرحي وأنا دقة بيلا تبي نمرك دم قلت ما يوسف وها يورحبا نور ولا يجوا كرني وحلا شيء كتير على توين طلع بستون المقال حري دقدر ويكوريس كون واشاي dadka qaar waxay yiraahdaan waa iska beenbeen iyo wax aruusta lagu cabsiyo waa dab kuwan waa dab way heeraha ka dhashan baa la garanayaa raasaskoodii baa nool marka garhaye wuxuu kala baxay awoodii iska roo jira ariga dabadna ribu dhagta jiidij
rida waa taqayl neefka riyay waa qayliya damarka dheerta la jiray arkariga kaliya waraabaha marka loo soo baxo luqunta kala jirin dhagaaga fadhi wuxuu kula baxay halka qadaadka maarta halkaas ayuu dadka kaga yimid halkaas uu kala jirin halowle waxa nin booda dheer madax gorof meel walba nabar baa ka yilo ka indhaha xuna ka soo baxay TV noocaas oo ahaa فيلم ما laga sameeyay inaga dad qalafadeen khatar bay heesay waka halowle ninka booda dheer buu heesay sidoo socday ku soo galaya soo iska heesay kuwaas ay ahaayeen baaciye isagu nugaasha dhaxo ka kacay maxamed daalin ba Allah uu naxariistay iiga sheekeeyay sahlan maxamed daalin da koob sagaashan kii wuxuu aniga iyo ducaale cawadooyo oo wada soconna yaanu meel markii hore labada qalato looga hayaamay yaanu isnidi hoob badan baa markaas bal meesha uu saantaga wuxuu saan u soconaynay yaanu geedkan higlada la yaado midhaha adduunka ugu macaan baa ka baxa heeli baa la heeli dadku ma yaqaan يعني حقا يكبحوا ولا غير يقانا لكن البيت كان يقول لك ما يقان هيليه بالله مرء ابوري او كما عالمت هل فراد يا شايو مركو وينو ساسو غلغلا هل فراد با يادا واحد مودين ها هل فراد با يا وانا لو هرادا سو تمرت marka wuxuu higlo wada higlo kob yaro higla oo wada casaatay oo isna madow doon iyo markaa jabsan mirq waxba mirq waan isla tagnay labadii naagood wuxuu halka awrada waxay falkiyeen oo damay wax dhirta laga falkiyay caleenta dhir baa ugu xiran ya halka naasana culayskoodii waxbay ku xidheen biyo dhabarka ku xidheen marka dad ma jirin adduunyada iyagu waa dagaalka madar bay dooniya waa urayaan oo dagaalada wuxuu naagiba leeriyaday markii na gaari waayeen bay baaciyo midda nin meesha ugu jira wuxuu yidhi nin aan sheegay war ma tijaal awrkii la sheegi jiray waan madaxiisa sugan kari weynay in baabana saaray anana waan isku dibardina marka hore inuu la saaray yahay waa ducaal awdi waa ina kala diin waa kala bayn rasuul ii waabi maxamed adu ii waabi hoota dhagalay baan isla nawi oo marka sida ugu waabiyay oo sida ila ducaal halka ka soo rido halka kaga talaadi waa baalay hoota dhagalay waxay leedahay laba حاجة كسر بحميسه حاجة نجرام بكلاه دين أنا كسر بحميسه لما بدنا هالشيء هو تعود بعيثها سال ودي تبتن ناقيه ويوي ما دين وهالشيء خالد الله يلا وما نتانو قال نبي يديك توجين تاني ما مخشى كوكاش عني نوقع كل ده نور كوكاش عني نوقع وحيكون صباح هذا لا هل كان ما عورة أكتيده أي ناق هوتك كذا على مركز ديك توجين خالد لا هاي بس هو هلا وكاتش دوا جرتنا حول عناني ولا مركب ده لا صباح شركو كادي دوا إسكهم مدودي إلا هو حاركي جوده هو شيء هاي بدارك بس كوكاتش عني نوقع كوكاتش عني نوقع ساس يكون صباح هذي تبنا ناقي ويكوكاتشين ده تقول كوكاتشين إننا بيجوا توصلي لكن بهالشيء كده حبيبي هو تبي إن عمرك بحبيبي سيدي بكون أنت مركب ويكوكا سيدي بكون أنت لمركب ما نسأل لك عن بيقولوا نجيت شيء كو عدو يسوون تقدر بوكك عدو تقدر بري بوك خير بو تقدر حالها ينهاي تبعتنا خير لبغي يسبوت ميدي هو مدليس وناك عدو مدليس ميدي نوع بشي لكن مدليس كيف باقي لها يقدر يبوك السجن لما يقول قرية علىها برعو بي السجن تشوقا محمود دالين هلا لما أنا أقول له تدخل ياهي محمود بعد ولا شيء ما أنت نمر كاسو كوكو دعي وقرر يساعدوه لما أقول إنه تصوعني محمود نوع عروتي الدجاج كان مركز ضبط وكلنا يبوها محمود دالين هو يقانا ترى يودن بو يقانا يحيى حلو تريده ما أشوفه يوري ما أختي ما إلهي يقول لي مدليس كهي لأنك هو تدخل نكون يدقود قدناي نكون الكعس هاي إلهي ناقتي وهو كالي ذكر حكوا شفته تعرض شرحت لا استدامسي لا استدامس أيام تدمان فيد أورتي أنت اللي أورت صاعر هذا يعني أور إلى كوب كوب وحيي كوب إسصار قال فريسي سبحان يدكس يمدينا ميل بس يدك يروح وضع ما كان فيد كأورت سوي بس أور كذي أمغر أنا أور كمية تواني هالك سوقر بس كالي يتوس هالك سوق تواني هالك تسوي سام لا ذكرت مركو هالك اللي تشوفه كله في هالك أهم حاله هذا حالك جويو هذين كده ما شيء لا يشوف يبي
subag madow weyn mahal subag madow yaa gawdhe yaa habeenkii sidii u shiilayay u shubayay ayuu allah akbartii ka jiri sibraarkiisii buuxsan oo wax wala ugu jiraan iyo subag iyo hilib nooc walba leh laagtaasa ugu daysay waxaan oo isagii maxaa lagu sameeyey markaa dee maxaa lagu sameeyey xaggii waa ka yimiyo waa la dilayo meel nugaashaasa buu intuu geed fuulay buu si bal wax nugaa soo socda adeeg dibadna gabadh inan sidata oo ninkeedii ka soo dulday baa geedkii timi markaas istii inanka naaska naxdin u taag badana markay furtay ee filisada soo fadhiiso yuu geedkii kama soo deginay soo boodo horteedii fadhiiso naa ii qaadina ka iiqa gabadhi waa kale ingej baa ii qaadina waanay garanaysaa inuu cunaayo yahay dee inuu haa dabaqli yahay ninkii dhalay ee gabadha qabay iyo naadirkiina waxay garanayeen in cadowga ka horeeyay ka gaadhay markaas laba faras bay wataan siday u soo wadeen bay soo gaadheen markuu arkay inay hayaan buu inankii ka dhibsoo la carray markuu arkay nimanka daninkii saaran buu inankii intuu lugtaa qabtay kii dhalay shir madaxa kaga ku tuuray dee kiina hawadu ka qabtay siday u horeeyeen bay ku dhufteen soo degista ay soo degeen ayuu haddana cad la gaadhi waa waxaan midhaa hilibka dadka cunaya dhiigan lama bagaadho waa balaayo bahalaha dee lama gaadho balaayaa wadataa horta dadqalladu saasi u jira gobolkaasi ka kaceen waa tahay waxa ay ka kaceen gobolka sanaag bay ka kaceen midna nugaasha ku qaadano ko nugaasha ka kacay degdheer iyo waxaanu may soo dhawaan degdheer ila degdheer waxay dhashay faahiye faarax biciide oo baha ka mid ah taariikhda waa wallahu wallahu hayaa idla faarax baa iyadii dilay inta isroodayay qabo idla faarax biciide baa iyadii dilay waaye markaas faahiyana oo ay dhashayna degdheer markaa waxay ka soo jeeday sida aan taariikhda ku maqlay gobolka Sool bay ka soo jeeday waa la garanaya waa tahay sheekadii dad qalatada intaasaynu ku baxaynaa kaga baxaynaa hawayaankii kale iyo waxaasaynu